وعنا xiisala daawadayaal meel kasto adduunka aad ka joogtaan halkani waa All Banaadir Online ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aan idin haynana waxa kamid ah maamulka Mandheero oo dawladda Kenya ka dalbaday in la saaro janan iyo xulafadiisa kuna goodiyay dagaal toos oo ay la galayaan dawladda Turkiga oo hurinaysa dagaalka Kenya iyo Soomaaliya diyaarado dagaalna keentay Muqdisho xilli loo gaaday qorshaha ay damacsan tahay dawladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay cadaadis ay kala kulantay urur goboleedka IGAD iyo arrin ay soo ogolaatay oo la soo bandhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo baahiyay in farmaajo looga guuleystay shirkii IGAD soona bandhigay qorshe mucaaradku uu kaga guuleystay Somaliland oo si wada raadinta xiriirada caalamka Soomaaliya oo ka xanaaqsan iyo wararkii ugu dambeeyay wafdi heer sare ah oo gaadhay magaalada Hargeysa mid ka mid ah saraakiishii sheegtay in dawladdu ay ku weerartay guryahooda oo ku dhawaaqay dagaal badan xogna bixiyay wararka ka baxsan Soomaalida ee aan idin haynana waxa kamid ah ku dhawaad 22 askari oo lagu toogtay caasimadda dalka Nigeria kadib weerar ay geysteen kooxda Boko Haram intaasi saaxiibayaal waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn wararkeena imika aatan isu diyaariya daawashada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan waagaag saaxiibayaal aan ku bilaabay sidii hordhaca baahinta warkeena aad ku daawanayseen maamulka magaalo xuduudeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee loo yaqaan Mandheero ayaa dawladda dalkaasi ka dalbaday in si degdeg ah loo saaro gebi ahaanba wasiirka amniga dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo ciidamo isaga taabacsan mas'uuliyiinta ugu sareysa magaalada Mandheero oo safar ku tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa la tilmaamay inay dalbadeen in dawladda dalkaasi looga baahan yahay in saacadaha soo socda gudahooda ay kaga saarto guud ahaan dalkaasi wasiirka amniga dawlad goboleedka Jubbaland oo ay ku tilmaameen inuu yahay shakhsi dagaal ooga sababina kara inuu ka dhaco halkaasi dagaal iyagoona ku goodiyay in dagaal toos lagu qaadi doono janan iyo ciidamadiisa ku sugan Mandheero mas'uuliyiintan ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa ay u sheegeen in janan xilligan uu yahay gabaadka sababi kara in magaalada Mandheero ay ka dhacaan dagaalo la iskaga soo horjeedo kuwaas oo ay tilmaameen inay yihiin dhibaato wajahaysa shacabka ku nool deegaanada Mandheero madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa ay ka codsadeen inuu qaado tallaabo kasta oo uu kaga jawaabayo baahidooda iyagoona sheegay in haddii uu sii joogo waqtiga janan ee magaaladani ay noqon karto goob dagaal arrintaasina ay caqabad ku tahay jiritaanka magaalada iyo dadka ku nool waxay sheegeen in Cabdirashiid Janan uu yahay shakhsi hurinaya dagaal uu doonayo inuu dhex maro ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaaliya arrintaasina ay tahay mid dhibaato badan ay ka soo gaari karto dadka ku nool halkaas oo ay sheegeen inay yihiin xilligan kuwa nabdoon haddii talaabadan ay qaadi weydo dawladda Kenya waxa ay tilmaameen inay iyagu bilaabi doonaan dagaal toos ah arrintaasina Kenya ay lagu hal gelin karto qalalaasa siyaasadeed oo hor leh balse ma jirto jawaab ka soo baxday dhinaca dawladda sare ee Kenya Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirka amniga dawlad goboleedka Jubbaland oo ay raadsanayso dawladda federaalka Soomaaliya horena dambiye ay ugu soo oogeen hay'adaha caalamiga ah iyo ciidamo uu wata ayaa ku sugan xadka Soomaaliya ay la wadaagto dalka Kenya waxayna tallaabadani noqon kartaa mid soo afjaraysa qorshe kasta oo uu janan ka lahaa xadka labadan dawladood u dhaxeeya oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ku sugnaa dawladda Turkiga ayaa hurinaysa dagaal siyaasadeedka ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya xilli diyaarado dagaal ay keentay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ila lagu kalsoonaan kara ayaa cadeynaya in sirdoonka Turkigu ay soo gaarsiiyeen dawladda Soomaaliya 6 diyaaradood oo nooca droonka loo yaqaan ee casriga ah kaas oo lagu farsameeyay dalkeeda bishan aynu ku guda jirnaa ayaa la tilmaamay in ay soo caga dhigatay garoonka diyaarad siday saraakiil sare oo ka tirsan laanta mukhaabaraadka ee Turkiga kuwaas oo sirdoonka Soomaaliya ku wareejiyay 6 diyaaradood oo daroon ah oo dhawaan Turkigu soo saaray taliyaha hoggaanka dabagalka NISA Cabdalla Daahir iyo taliyaha waaxda arrimaha dibadda NISA Liibaan Daahir ayaa waxa ay kala wareegeen qalabkan saraakiisha Turkiga ah ee siday wararka qaar ayaa tilmaamaya in durba la hawlgeliyay 2 ka mid ah diyaaradaha droonka isla markaana loo diray gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalooyinka Kismaayo, Dooble iyo Afmadow
si ay xog buuxda uga keenaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee maamulka Jubbaland ay ka wadaan halkaasi. saraakiisha ka tirsan NISA oo magacyadooda aan loo soo bandhigin warbaahinta ayaa waxa ay tilmaameen inay doonayaan in gacanta lagu soo dhigo hogaamiyaha Jubbaland si looga adkaado dowladda Kenya sida hadalka loo dhigay. Doroniskan ayaa la sheegay inay awood u leeyihiin inay qariso sida F-16 iyadoo aqoonsanaysa raadaarkeeda waxaana xawaaraheeda lagu qiyaasay inay jari karto 1600 oo kiiloomitir saacadiiba. qaar ka mid ah warbaahinta Turkiga ayaa soo bandhigay macluumaad ku saabsan Doroniskan waxayna cadeeyeen in si goor dhow looga arki doono guud ahaan dalka Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligan dagaal aan dhuumasho ahayn kula jirta maamulka Jubbaland ee uu hogaamiye Axmed Madoobe waxayna marar badan adeegsatay awood ciidan si ay meesha uga saarto madaxweynaha maamulkaasi. tanina waxa ay ka mid noqon doontaa awoodii ugu weyneed ee dowladda federaalku ay u adeegsato maamulkaasi dhisan ee Jubbaland. Korneyl Cabdullaahi Daahir oo ah sarkaal awood badan isla markaana haysta hoggaanka dabagalka ayaa la aaminsan yahay inuu hadda horboodiyo howlgalka dowladdu ku doonaysa in xilka looga tuuro hogaamiyaha awoodda badan ee Jubbaland Axmed Madoobe. walow aan la saadaalin karin natiijada dagaalka haddana waxaa la rumaysan yahay in suuragal ay tahay in sarkaalkani uu yahay shakhsi madax adag kuna wanaagsan qorshayaasha dagaalka. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa marar hore oo badan waxa uu shaaciyay in dowladda federaalku ay diyaarinayso shirqoolo badan oo ay ku doonayso in meesha ay kaga saarto maamulkiisa. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kadib dhamaadkii shirka IGAD waxa ay shaacisay arrin cadaadis looga saaray fadhiga waxayna sidoo kale soo bandhigtay arrimo ay soo ogolaatay. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq oo kamid ahaa wafdiga madaxweynaha ayaa sheegay in IGAD cadaadis xooggan ay ku saareyso in Soomaaliya ay xalisay xiisada kala dhaxaysa Kenya. wasiirka oo warfidiyeenka la hadlay kadib ayaa waxa uu cadeeyay in madaxda ku bahoobay ururkan ay dowladda Soomaaliya ku cadaadiyeen sidii xiisada kala dhaxaysa Kenya loogu xalin lahaa golahaasi iyadoo la dejinayo xiisada. wuxuu xuseen madaxda IGAD ay ka ogolaadeen in la dejiyo xiisada oo xilligan maraysa meel sare tani markii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay kadib markii ay ku eedeysay faragelin dhanka qarannimada ah. wasiirku wuxuu cadeeyay inay dalbadeen in guddi loo saaray xiisada taasoo ka soo cusboonaanaysa xadka Kenya oo uu sheegay in xukuumadda Nairobi halkaasi ku abaabushay maleeshiyaad jabhadaha oo hubeysan wuxuuna shaaciyay in ogolaatay in loo diro guddi xaqiiqo raadina. hadalkiisa ayaa imanaya xilli shalay Jabuuti lagu kulansiiyay madaxda labada dal kaas oo goobjoog u ahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan in farmaajo lagu qanciyay in gebi ahaanba uu ka tanaasulo dagaalka siyaasadeed ee xilligan uu kula jiro Kenya. hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shaaciyay in farmaajo looga guuleystay shirkii IGAD wuxuuna soo bandhigay qorshe mucaaradka hore ay u sheegeen oo dhaqan galay sida uu tilmaamay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka hadlay qodobada ka soo baxay shirkii Jabuuti ka socday. qodobka 14aad ee warmurtiyeedka ka soo baxay shir madaxeedka IGAD ee ka hadlayay doorashooyinka Soomaaliya ayuu tilmaamay inuu ahaa mid sii adkeynaya war-saxaafadeedkii sida wadajirka ay u soo saareen beesha caalamka 15 December. qodobkaasna waxa uu ahaa mid ka hadlayay in looga baahan yahay dowladda xilligan jirta inay xaliyaan khilaafka ka dhaxeeya dowlad goboleedyada saamilayda siyaasadeed iyo cid kasta oo doorashada ku lug leh waxaana lagu tilmaamay in doorashada loo baahan yahay in lagu maamulo hab kalsooni wadar ogol ah iyadoo oo la tixgelinayo heshiiskii la gaadhay 17 Sebtembar. hore ayuu u tilmaamay in midowga musharaxiinta uu qaybta ka yahay ay ugula taliyeen madaxweynaha inuu hanaanka maamulka doorashada dhexda dhiga lagana heshiiyo ismarin waaga taagan balse arrintaasi uu dhagaha ka fureystay wuxuuna sheegay in xilligan mucaaradku ay yihiin kuwa markasta ka guuleysanaya madaxweyne Farmaajo. arrintanina waxay u muuqataa mid Cabdiraxmaan uu ku weerarayo Farmaajo taas oo uga tusaale dhigayo inaysan macquul noqon in mar kale uu soo laabto. Somaliland ayaa weli sii wada raadinta iyo ballaarinta xidhiidhada caalamka ay la yeelanaysa qaar ka mid ah dowladaha adduunka ka jira xilli arrintaasi ay walaac badan ka muujinayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. muddooyinkii ugu dambeeyay Somaliland waxa ay qaadaysay dhaqdhaqaaqyo cusub oo ku aadan helitaanka wadamo ay la yeelato xidhiidho caalami ah waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa oo xarun u ah
Somaliland iska daba imaanayay wufuudo heerkoodu sareeyaan kuwaas oo siyaabo kala duwan u soo gaadhayay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. wafdi heer sare oo ka socda dalka Koonfur Afrika ayaa gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxayna kulamo la qaateen mas'uuliyiinta ugu sareysa Somaliland. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wafdiga xisbiga talada dalkaasi Koonfur Afrika haya la kulmay wuxuuna kala hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay horumarka iyo sidoo kale rabitaanka ummadda Somaliland. talaabadan ayaa u muuqata mid mar kale cadho gelin karta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxayna markasta Soomaaliya danaynaysaa in Somaliland ay joojiso talaabooyinka ay qaadayso. ugu dambeyntiina saaxiibayaal 21 askari oo ka mid ah ciidanka militariga dalka Nigeria ayaa lagu toogtay caasimadda dalkaasi kadib markii goob ay fadhiyeen weerar ay ku soo qaadeen koox ka tirsan Boko Haram. afayeen u hadlay ciidanka dowladda dalkaasi ayaa sheegay in tirada dhaawacu intaasi ka badan tahay dagaalkana uu yimid kadib markii meel lagu tababarayay ciidankan weerar gaadma ay ku soo qaadeen kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta dalkaasi. afayeenka ayaa sheegay in ciidanku markii dambe ay ku baraarugaan dagaalka isla markaana ay qaateen hubka isagoo intaas ku daray inay sameeyeen dhaqdhaqaaqyo kala duwan. waxa uu intaas ku sii daray in ciidamadu ay wadaan howlgallo lagu baadi goobayo kooxda dableyda ah ee weerarka soo qaaday. warkii saaxiibayaal waa naga intaa.